قول كان بينتو كبر رأيني وح fake news كلي هذا ترامب وصوصاري بكام ميرس كرديجا وح نهرو مسرين بدعاء ولا مسنة محيطاي يضو كوبان وحانو النهاي أمد رجع دمر با مجا الشرف كل هنجتي ماموس جيز كأفريقيا وحانو وحديق عندك كوجيرة وربانية وأنا نقول دورا إنه أول شيء وهاين كوي كوبي لباتن سنة استعمار كي أدون كوحو كورونا لدق عالمي وحانو كوهيرينا تاريخ ولا يقبض إياه مدب بقول صلاة كير سلطان كان مكان موسى بكر كليل هذا عمر نوغوي مقعد واشنطن دي سي oo sheekeynaya dhalinyar badan oo qoyska ka dhalatay uu leeyahay warninka kan inoo soo galay hore oo maarga halay sheego adigu markaa sheekadii soo socoto gartay maxaad ahaydo nin aakhirkii dhul bahantu soo galay ha wanimankii fardahooda markaanu gurdankiisa maqlo buurta ku carari jirnay Soomaaliya buur wax allaaliy wixii meesha fadhiyay dhalinyartii meesha fadhido 30 jirku ama 40 jirku ugu weynaa waa qaadan waaye boqorkii qoyska ayaa leeyno markaan fardahooda ka carari jirnay hadaynu maanta cararkii inaga inagu socdo oo xaruntii daraawiishta anigu kuwa ka soo baacsadeen baan mid kamid ah waa tuux axmed shukri sheegay walaalayaal nafsigu waa wareegaya baritana inaan halkii ku soo noqono oo gurdanka fardaha naga laga yaaco waa suuragal إلهينا وسورة جرين كرا مركا وعروق الصعداء وحنو شلي عامي سنين ما أنتنا عامي سنة لأن كسر دوادو فيك نيوز كمارس كرديجا عدين نما فناس نقو موضو عدين مسكح رياضة ما بدرش أنه ضدكي بانو النهاي عامي سنة شليتو ما أنتنا عامي سنة برينا عامي سنة عندنا inay ummadatan xaq rabbaaniya leedahay oo ay dalkeeda iyo dadkeeda ay hanato intana daafacato iyada ma ahayn cid kale inaanay ku amarto kaalin oo ka taliso waxaanu aaminsanahay mid shakhsi tahay hadii mid guurti tahay aan isbedelahayn xuquuqda rabbaaniga ah ee aanu leenahay oo mid aanan hargeysana martii uga ahayn garowna uga ahayn xamarna uga ahayn tusaale yar baan idin siinayaa dhabar adeygii hadda cabdirashiid uu ka hadlayo iyo sabirka iyo maxaan ku yiraahdaa qofku waxa kanu aaminsan yahay inuu ka mid dhaliyo intiina taariikhda Afrika la socota dagaalkii ugu dheeraa ee ka dhacay geeska Afrika wuxuu ahaa kii xornimo doonka dalkan Eritrea la yiraahdo dhowr iyo 30 sano ayaa qofka qurbaha jooga ee Eritreanka taariikhdana waa laga yaabaa intiina badan ay taqaaniin qasab ay ku ahayd mushaharkiisa hadduu kun qaato iyo hadduu 10 kun qaataba in go'aan oo ka badan 2% ayuu bixinay qaar bay 20 sano ku qaadatay qaar bay 30 sano ku qaadatay ilaa ay xornimadooda ku gaadheen markii khaatimo la dhisay waxaan lahaa ilaahay inagu ma gaarsiiyo koob iyo 30 iyo ziyaado sano waxaan ku rajaynahay hadda siday ku socoto de warbaha magaalo madaxdii beeshatan reer khaatimo 10 sano gacan ay ku jirtaa niman isagu inuu ka taliyahay ilaahay idankiisa 10 sano dambana qaadan mayso 5 kalena qaadan mayso ka yar ayaan ku hanan doonaa inaan talada naga gacanta ku qabano biidnillaahi kariim waxaan kaloo ku soo dhawaanayaa wararka waqti baan joognaa oo inaga dheereeyo warku annagoo xamar joognaa YouTube iyo wixii xamar ka dhacay go'aamadii ka soo baxay gidigeen internetka ka akhrisanaysa marka hadda waxaan kaga noqdo bil baa ka soo wareegtay ma jiraan laakiin qodobka ugu weyn ee ka soo baxay haddii aan laba saddex mid hoosta ka xariiqo ka koow wuxuu ahaa wax allaale iyo waxa maamulka khaatimo maanta ay gacanta ku hayaan
ee ay leeyihiin waxaan ula galnay khaatumo oo dhardhaaran oo dhisan oo maxaan ku leeyahay la gelbinayo Hargeysa ula galnay wax suura galaya ma wax haday sanad qaadato haday 10 qaadato haday 30 qaadato wax ka suuroobaya beeshan ma cid ay marti uga noqonaynaa taana ma jirto waxa daliilka waxa walaalahanaga iyo dadka aanu deegaanka iyo tuliimada iyo qaraabada iyo xididnimada wadaagne beelweynta beesha dhexe waqooyi ku noqday ay garawsatay inaan Hargeysa xamar looga talinahayn walaalayaal cumriganagu intuu nool yahay inkastoo sanaa naga qaadato laascaanood iyo buuhoodle iyo boocame iyo ceerigaabo deegaanada sool iyo sanaag iyo cayn ilaahay nagu beeray Hargeysa looga talin maayo waad garateen ma intaasoo dhiig haday ku baxayso waxaanu ku nidhaahnaa shalay loo hortaagnayn maanta loo hortaaganahay 22 sano dagaaladii daraawiisheed haynagu kalifina colaad idinna uma baahanayna uma baahani nabad baad u baahantiin iyo horumar nabad iyo horumar baanana u baahanahay aqli ha shaqeeyo ciidamadiina kala baxa dadkiina deegaanadoodii ha ku noqdeen wixii nabad ku joogaya deegaanadana sidii loo wada noolaan lahaana aan ka wada hadal waxyaabo maguuraana oo asala ayaa khaatumo hadda garabyadan la sheegayo ay ku noqotay waxa xalka lagu helayaana waxa weeye arrimaha masiiriga ee lagama gudbaanka saaxiib baan lagu tixgelinayn xukuumad baan lagu tixgelinayn qofku hadduu qaldan yahay ka soo joog qaladka la leeyahay soo waxaad garateen ma marka aan ku soo dhawaano wax allaaliyo wixii hadda aan waxay yiraahdaan warkii ninkii looranjay warnoo waran iyo waxay ahayd walba wax ogaal ogaal wax weydiin ogaal waxaan jeclahay inaan khudbad anagu inaan akhrino markan holanba Soomaaliya mar labada qodob aanu nimi waa intii abshi sheegay waa intii odayaashiga horeeyeen sheegeen adinka inaanu tala idin weydiino arrintan cakiran bal fakarka aad leedihiin sidaas looga baxaya inaad waqti u heshaan aad ku cabirataan kii wax naqdiyayana inuu xalka ku daro yiraahdo xalka sidaas aan u arkaa wiil iyo gabadhba oday iyo maxaan ku raadey marwo iyo mudanaba haddaad leedihiin waxaana wax ku hagaagayaan waxa maxaa loo qaban waayay maahe waxa weeye wadcigan la joogo sidaas lagaga